الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مدن قدومية كحجان كوبات إيا لباد حل دبانا شرف طلع مرت شرفك إذا ماذا قلب كسيدا كوا قرن كصوماليات إيا كوا أمسهم بعد الصحافة ضمانتي وحالدكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام أنا مقعيق وحال يرادا صلاة علي جير. وحانا هاي مشرح تاغن حلك مدحوينها جمهورية فيدرالك الصومالي. وحانا حل ديوان كتر سنة برلمانك الصومالية حلال كلا دوانا كسوق ابتي قولها حكومة. waxaan ahay oday xog ogaala oo goobjoog u ahaa madaxdii qaranka oo ku dhaqmaysa sidii qof aan mas'uuliyad qaran saarayn. madaxdii qaranka oo aan tixgelinaynin saraynta sharciga. madaxdii qaranka oo daawanaysa maamul xumo musuq maasuq iyo cadaalad darro. ilaahayna wuxuu quraankiisa ku leeyahay inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa iitaa'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi. saddex xumaa iyo saddex wanaaga waa lixdaas oo ilaahay amra marka waa iska daawanaya. mar walbana waxay rabaan in la iska doortay rabaan. waxaan ahay anigu isbedel doon u adkaysan waayay mas'uuliyad huwan hay-ad qaran oo maamul kasta maalin kasta luminaysa fursad qaali ah oo keeni karta isbedel dhaqaale amni bulsho oo dib loogu soo noolay karo sharaftii iyo karaamadii iyo midnimadii ummadda Soomaaliyeed. arrintaas marka waxay haddana waafaqsan tahay mar haddii ay karaamadii iyo sharaftii fursadeedii dhuminayaan waxaa la rabaa haddana waxay rabaan inay shacbiga Soomaaliyeed ay adduunyada gefiyaan ay aakhira u diraan. ilaahay haddana quraankiisa aayad kale wuxuu ku leeyahay asoo taas ka hadlaayo wabtagi fii maa aataaka allaahu daara alaakhira. warniyow aakhiradaada doono oo jinna ka gal walaa tansa nasiibaka min addunya adduunyadaadana ha hilmaamin ou leeyahay ilaahay. waxay rabaan inay adduunyadiina idin hilmaamsaan oy nasiibkiina idin gefiyaan inta dooratiin. taas marka waxaan rabaa anigu inaanan idin gefina adduunyadiina nasiibkeeda aan idinla qaybsan. mudanayaal iyo marwooyin dhowr jeer oo hore ayaan doortay oon iska hormariyey madaxweyneyaal iyo ra'iisul wasaarayaal aan isleeyahay kuwan ayaa daacad u ah keeni kara isbedel iyo waxqabad ay u baahan yihiin shacbiga Soomaaliyeed. hase ahaatee uma dhicin sidii aan raba. sidaas darteed marka waxay igu kaliftay in anigu soo joogsan.
محايا لي أنا جاينا قبكر وأوجه لكن ضد وكده على ضدك لكن أنا هدادي دورتين وحسان قبكر كوبي يلا باتن سنة كدي ما أنت أو أي أن كبحنا كميل قرني مدي أو أنو قدو من الدولة رسمية وحا إيقا شيء عبسية ولول أما لوايا ملح داعضة أو أهانك أو كاري كارتا فرصة كفايدي كارتا أو كاري كارتا اسبدل لقو ديرصد تاسو هدي أي دعي ويدو ومدى الصوماليات إيا باش عالمك كو كاري كارتا إن لقا قوصد الصوماليا إيدونا إيسكا قوصد sidaa darteed marka waxaan ugu talagalay inayna Soomaaliya iska quusano anaa samata bixi kara aan samata bixi maxaa yeelay kuwa aan samata bixi karin naftayna ugu dhibeen mudanayaaliya marwey madaxda aad maanta doorataan awood ahaan way ka duwan tahay madaxdii hogaaminaysa dawladda ku meel gaarka oo aan lahayn awood sharci oo ay ku qaadato go'aamo masiiri ah sida wax ka bedelka xuduudaha dalka qaadashada deymo dhaqaale gelis heshiisyo caalami ah qaadashada hantidii kaydka u aheeda ummadda Soomaaliyeed iyo wixii lamida ayay tan u sameey kartaa haddaad qaladiin marka waxa soo dhamay dhuma xuduudahay dhume dalkay gade hantidii kaydka aheeday dhacay waxaad ogtiin 130 malyan ay dhaceen waxaan anigu marka sameeynaya waxa soo dhamaan sidii loogu talagalay uwada maxaa yeelay waa fursad qaali haddaba aniga oo ah walaalayaal haddaba aniga oo ah hogaamiye daacada u leh dareen qaran iyo khibrad maamul oo ummadda Soomaaliyeed u keeni kara mustaqbal wanaagsan waxaan isleeyahay waxaad noqon kartaa hogaamiyihii ka saari karay ummadda Soomaaliyeed masiibada ku habsan sidaas darteed amba sidaa awgeed waxaan xildhibaanada sharafta leh ka codsanaya inay codkooda isiyaan maxaa yeelay kii ay u baahnaayeen ana mudanayaal iyo marwey anigu waxaan ahay mar labaad Salaad Cali Jeelle waa idinkugu celaa muwaadin daacad ah oo la yaqaan waxqabadkiisa fikirkiisuna oo cad yahay waxaan ahay wasiir ku xigeenkii warfaafinta iyo hanuuninta bulshada Soomaaliyeed aniga ayaa soo naaleeyay wasaaradda warfaafinta oo hadda shaqeeyay anaa hawsha ka bilaab waxaan ahay wasiir ku xigeenkii gaashaaniga ee ka badbaadiyay in hay'adaha dawliga ah ee maanta jira la baabi'iyo xilli ay adkeen in qof Soomaali ahi sheegto magaca dawladnimo ama yiraahdo dawladda ayaan u shaqeeyaa nin dhihi kara ma jirin markaan anigu badbaaday waxaan u ololeeyay kadibna aan u codeeyay in aan dalka ay yimaadaan ciidamada ka socda African Union waa kuwa hadda maantana ilaalinay kadib markii aan arkay in aan ciidamo beeleedyada iyo xagjirka jaani siinayn in la dhiso ciidan qaran in la dhiso subaxnimay weerarayaan haddaan ciidanku ilaaliyo aan lahayn
waxaas inta ka fikira ayaan already aan ciidamada keen kadibna waxaan garoonka caalamiga ku soo dhaweeyay Muqdisho cutubkii ugu horeeyay ee ciidamada AMISOM yaa ila sheega kara ilaahay idinku dhaariyo waxa dhan oo dadku ku faanayo waxa la yiraahdaa Soomaalidu waxay ku mahmahdaa taala gu'digay ay dayru ku faantaa dadkan dayru way aan gu'aana maxaa yeelay gu'aan roob badan mana faayo laakiin dayrtu waxay soo jiridkii hore nool ayay ku kor shaqeeyeen markaasay cawska ayaw soo baxa marka aniga jiridkayga way waxa la isticmaalaa mudanayaan iyo marwooyin anigu waxaan ahay muwaadin Soomaaliyeed oo wiligiis ka bixin dalka gudihiisa ku soo barbaaray dadka danyarta dhexdooda waxaan ogahay waxa laala waxaad idinku rabtiin shacbiga Soomaaliyeed oo danyarta wax noloshaan la qaybsada marka waxaan garaa waxa ay u baahan yihiin kuwan laakiin garamaayaan waa iska socdaan mudanayaan iyo marwooyin waxaa dhici karta musharaxiinta walaalaheeda in qaarkood ay iga fiican yihiin xagga dhaqaalaha iyo abaabulka iyo baabuurta iyo suugaanta laakiin aniga slogankaygu wuxuu yahay lacag waa qaadasho codkana waa in aniga la isiiyo slogan kale oo anigu aan wato ma jiro waxaan rabaa marka inaan u soo dhaco barnaamijkayga waxqabadka kow midka ugu horeeya waxaa waaye xasilinta amniga maxaa yeelay anaa aqoon u leh hirgelinta dastuurka federaalka waa meel maraa afti dadweynaha loo qaadaa muddo 3 sano waxaa waaye garsoor madax bannaan oo cadaalad ku dhisan oo musuqmaasuq aan lahayn waxaana dhisi doonaa maxkamad dastuuriya oo wixii la isku qabsada kala saar 5 arrimaha bulshada waxaan soo celinayaa caafimaadka iyo fayadhowrka biyo wanaagsanna waa la cabaa arrimaha siyaasadda dib u heshiisiinta ayaan sii wadaa walaalaha Somalilandna waxaan ugu baaqaa midnimo waana ka mira dhalinayaa oo ana SNM haajir number 7 xiriirka caalamiga wadamada diriska annagoo fahamsan adduunku inuu maanta yahay hal gobol lana kala leeyahay dana dhaqaale iyo mid siyaasadeed isla markaana la kala awood roon yahay aniga Soomaaliya waxaan u sameeyaa saaxiibo strategic farayn dhisaan u sameeyaa strategic saaxiibaan u sameeyaa haddii halna dili tago soo hal loo ilaaliyo haddii halna dili tagiyo waa inuu halna ilaaliya maxaa yeelay annaga xoog ma lihi mudanayaan iyo marwooyin anigu waxaan idinka mid ahay waa soo gebangebayaha ugu dambayntii waay mudanayaan iyo marwooyin iga raalli ah mudana guddoomiye anigu waxaan idin la imiday niyad wanaag iyo rabitaan aan doonayo in aan badbaadiyo dadkayga iyo dalkayga hooyo sida kor aan ku soo sheegay waxaan ka imid oon u taaganahay dareen iyo rabitaan dadka caadigaa ka yimid ee Soomaaliyeed sidaa awgeed waxaan qaxootiga gudaha ku jiran oo barakacayaasha dalka gudihiisa ayaan ku daryeelaa kuwa dibaddana dalkoodaan ku soo celaa maxaa yeelay anigu argagixisada waa ciribtira iyo burcadbadeed maba igu daahayaan
waxaan marka ugu dambayntii waxaan idinka tuugaya aniga ma rabo waxaan idinka codsanayaa idin dhihi ma maxaa yeelay gobolkayga waxaa laga yaqaan tuugmo wax la yidhaa anigu waxaan idinka tuugayaa inaad isiisaan codkiina waxaana ballan qaadaa inaanan idinku caasihayno aan anigu sharcigaas ilaalinayo duruufaha aad ku nooshihiinna aan ogahayo aadanba ka warramayna qoyskiinne gobolkaad ka soo jeeda inaad igala warramaysid maahine naftiinna iyo carruurtiinna igala warrami maysid aad iyo aad aad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu